safiirka hore ee dowladda Mareykanka u fadhiyay dalka Soomaaliya intii u dhaxaysay 2016 ilaa 17 Ambassador Stephen ayaa dowladdiisa u soo jeediyay inay qusiirad ka furato Somaliland. Ambassador Stephen oo qoraal dheer qoray ayaa waxa kale uu dowladdiisa u soo jeediyay inay midowga Afrika kala shaqeyso sidii loo dhisi lahaa meeqaamka Somaliland iyo in madaxweynaha xiga farmaajo ee Soomaaliya uu sameeyo wada hadallo miro dhal ah oo uu la yeesho Somaliland. Safiirka oo arrimaha ka hadlaya ayaa waxa uu yiri masaafada iyo inay ka fog tahay Muqdisho, Mareykanku waa inuu Somaliland ka sameystaa qunsuliyad si ay u caawiso muwaadiniinta Mareykanka ah ganacsiga iyo in la dhiso xiriirada. Safiirku waxa kale oo hadalkiisa ku daray waa inay sidoo kale kala shaqeysaa midowga Afrika iyo dhinacyada kaleba in la xalliyo meeqaamka Somaliland iyadoo madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya lagu dhiirigelinayo inuu sameeyo wada hadallo degdeg ah oo macno leh. waxaanu intaasi raaciyay safiirku deganaanshaha Somaliland iyo halka ay ku taalo gaar ahaan dekedda Berbera waxa ay Mareykanka siin kartaa xulashooyin istiraatiijiyadeed oo faa'iido leh, laakiin waa haddii ay Somaliland yeelato sharci caalami ah oo laga wada xaajoodo heshiisyada.